ismaqal wacan ku soo dhawow muuqan gaaban oo aynu ku dul istaagayno arrimo guur iyo haasaawe oo la oran karo waxay joogto u dhexmaraan haween da' marka aan da' leenahay waa haween dhaafay xilligii dhalmada ama dhaqashada oo Mareykanka u dhashay kuwa oo kumanaan mayl u safra helidda wiilal yaryar oo u dhashay dalalka Carbeed iyo qaar Afrikaan ah. Tusaale tani waa Laura waa 51 jir reer Mareykan ah oo gobolka Florida ka soo jeeda. Kana waa Alodin oo goorta muuqaalka la duubay oo 2 sano ka hor ah 30 jir ahaa ka oo reer Qatar ah. Tanna waa Rebecca oo reer Mareykan ah taas oo jirtay 47 sano halka Said oo ay iskuursadeen yahay 24 jir u dhashay Tunisia. Angela waxay ahayd 54 jir marka muuqaalka la duubay taa oo iyana Mareykan ah. Waxa ay guursatay Michael oo 31 jir Nigeria u dhashay ah. Tanna waa Lisa oo 51 jir ah marka ay iskuursanayeen Usman oo 30 jir Nigerian ah. Dhammaantood waxaynu oran karaa waa guurdaneedyo u dhaxeeya dad farqiga cimrigoodu kala fog yahay. Waana sababo uu ku xiran Mareykan jacayl lagu kasbaday qalbiyada wiilashan yaryar ee Afrikaanka iyo Carabta ah. Dalalkaasina sida Soomaaliya oo kale waa kuwo da'yartoodu u badan yihiin mucaashaqiin u golongolaya nolosha Mareykanka. Haddaba tan xiisaha leh ayaa ah in intooda badan guurarkani fashilmeen. 2 marxaladood ayaana sal u ah inta badan inay fashil ku dhamaadaan. Waa tan koowaade isfahanka labada qof oo shukaansiga kadib adkaada maadaama ay kala dhaqan, kala diin, kala af iyo kala jiil yihiin. Waxa suurtagal noqon weyda inay nolosha isku dhinac ka arkaan. Taasna waxay sababtaa inay bilowgaba isku qoonsadaan farqiyada aynu sheegnay. Sababta labaad oo guurarkani u burburaan ayaa ah kadib markii Mareykanka la geeyo raggan da'yarta ah kuwa oo hadafkoodu yahay inay uun cagaha dhigaan carrada Mareykanka si ay halka nolol wanaagsan uga bilaabaan. Maadaama aan ajandahooduba ahayn la noolaanshaha haweenkaasi waayeelka ahna sida ayuu guurku ku burburaa maadaama uu awalba ahaa hadaf ku gaar aan rabitaan ku dhisnayn. Barnaamijka la yiraahdo 90 Day Fiancé ayaa dib u rikoor gareeyay dhammaan sheekooyinka iyo marxaladaha xiriirka haweenkan iyo raggan da'yarta ah maraan. Waa qisooyin xiiso leh xiriirada dhexmara dadka dhaqan af iyo diinba kala gedisan ee dunideena. Burburka guurarkan badankood ku dhacayna waxay digniin u noqon karaan ciddii haatan damacsan inay kuwa oo kale samayso. Hoos inagula wadaag haddaad ogtahay qisooyin noocan ah oo dalkeena Soomaaliya ka dhacay.